hooyo single mom oo 6 ilmood korsanaysanahay. Labada cunug oo igu waaweyn midna jaamacad buu ku jiraa, midna 18 buu ahaa last year. Wuxuu dhameeyay high school 2 bilood ka bacdi high school isagoo jaamacad u socda accident buu subax asagoo shaqo u socda. Oo waliba ku yiri hooyo anaa ku tuurayo intuu iga diiday ilmaha waad iska taqaaniin age-kan ku jira. Wuu igu yiri ma ana aadaya break-gan ku soo noqonayaa buu accident nags ku dhaceen. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal asxaabteena cusub asxaabta kasii horeysay bulshaweynta Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan bahda YouTube-leyda iyo social media-sha kale dhammaantiin walaalayaal waxaan idinku salaameynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib daawadayaal maanta saad u jeedeen aniga iyo Raxmo ayaa fadhino waxaana idiin wadnaa waxa arrin muhiim ah waa dareemi karteen aniga Raxmo markaas la soo fariisano arrintu inaysan sahlaneen. waxaan nahay family aad iyo aad u mashquulkeena runtii arrin kasii muhiimsan ayaa maanta rabnaa inaan idinla wadaagno haddii Ilaahay yiraahdo. dhacdadaasi Raxmo ayaa si fiican la socotay insha Allah taala ayada ayaa nala sheekeyn doonto. haddaba ku soo dhawaada Raxmo. waxa waaye gabadha Mareykanka wiilkeeda ku galay shirka oo Soomaaliyeed. marka hore waxay deganeen Minneapolis way ka guurtay waxay u guurtay Virginia 10 sano deganeed. wiilkeeda shil ku galay subax ka mid ah wuxuu ku dhahay shaqadan aadaya hooyo markaas waxay dhahday anaa ku tuuraayo markaasuu dhahay bareekayga hooyo ku imaana iska daa. marka sidii qadaray ahayd meeshaas waxaa laba gaarigiisii gaari kale isku dhacay marka hooyo oo uur lahaa ku dhimatay. 3 bilood istaal ku jiray 4 biloodna rehab ay ku waday 7 bilood markii uu isku daray 9 marna waxay dhahday wuxuu galay qalitaan xataa si fiican uma socon karay dhahday qalitaan kale inuu galaa laga yaabaa. markay xoogaa isdhiis cunuga ku soo fiicnaaday hadda waxaa lagu soo oogay maxaa la dhahaa inuu dambiile yahay. wasana dhaawac xunaa gaaray wuu jajabay lafta lugta meelo badan oo ka jabay. marka wax kastaba hadda xoogaa uu ka soo kacay laakiin si fiican uma socon karay dhahdo hooyadiis. Raxmo aad iyo aad bay mahadsan tahay walaalayaal runtii waa arrin aad iyo aad u xanuun badan. arrimaha dhacdadaasi qaabka wax u dhaceen iyo xaaladda taagan ama xaaladda ay ku jiraan qoyskaas maamada ayaa nooga warrami doonto. kilib yar ayaan idinka haynaa aan idinla wadaagi doono. sidoo kale hooyadan waa hooyo single mother ah oo 6 ilmood kaligeed korinayso. runtii waad dareemi karteen dalka Mareykan ama qurbaha hooyo kaligeed ilmaheeda korsanayso 6 ilmood la dala dhacayso. ilmahaasi ilaahay u koriyey mid jaamacad ka soo baxay midna high school u dhameeyey inta kale way ka sii yaryar yihiin. mid jaamacadu ku jira ay tiri high school ka baxay jaamacadu hadda galay. markay ku nasan lahayd ay maaragtay maasha Allah labadaas garab u noqon lahaayeen oo maanta 4tii kale isla korin lahaayeen xaaladan qabsatay waa arrin aad iyo aad u xanuun badan. hooyada ayaan ka maqlaynaa inta maaragtay xaaladda hadda waxaa laga rabo iyo xaaladda hadda wiilku ku sugan yahay. adduunka meelaa rabta ka joog GoFundMe page ayaa loo sameeyey qof walba wuu kaalmeyn karaa. muhiimad aniga Raxmo u soo fariisanay inaan annaga idiin sheegno wax awoodeenna qoyskaasi waan la garab taagannahay dhaqaale hadday tahay wax walbo ay naga baahan yihiin. sidoo kale walaalaha muslimiinta oo nagu xiran oo muxsiniinta oo khayrka jecel waxaan idinka codsanaynaa qof walba inuu garab istaago duca ha ahaato dhaqaale ha ahaato tala ha ahaato waxay rabtaa ahaato inaan garab istaagno u istaagno hooyadaasi. maanta ayaday ku dhacday ayaday haysataa berri mid annaga naga mid ay ku dhici kartaa anigay ku dhici kartaa adigay ku dhici kartaa ilaahay nooma keeno ayadana dhibaatadaas ay ku jirto ilaahay ha ka saaro insha Allah taala. kilibkan yarna la daawada. hooyadani waxay degnaan jirtay gobolka Minnesota magaalada Minneapolis 10 sano ka hor ayay ka guurtay Virginia ayay degtay. halkaasi dhibaatada markay ku qabsatay way isfahmi waayeen dadka halkaasi degan iyo waliba qoyska gabadha uurka lahayd ka dhimatay ayaa halkaasi ku nool. cabsi weyn ayay dareentay kadib gobolkeeda ay hore degnaan jirtay ayay ku soo noqotay Minnesota.
halkaasi oo isku soo baxeen jaaliyadda Minnesota dadka caanka ah oo aad u taqaaniin qaarkood halkaas isku yimaadeen oo maaragtay garab istaageen. Maanta Minnesota ayay ku sugan tahay ayada iyo ilmaheeda oo dhan Minnesota ayay joogaan. halkaas ay ku soo carartay waxay is leedahay waa meesha Soomaalidu ugu badan tahay waa meesha laga yaqaano xaaladdu markay xumaato dadkaaga baad ku soo cararaysa dadkaasi ay ku soo carartay ayaan ka mid nahay annagana insha Allah tacaala aan garab istaagno haddaba muuqaalkan aad daawan doonteen waa Minnesota waxaana muuqaalkan diyaariyey Xogmaal Media oo aan aad iyo aad uga mahadcelinayno waxaan idinla wadaagaynaa klibka inta hooyada hadlayso insha Allah tacaala hooyada wiilka dhashay Mahada Xasan hadalkeeda kooban ayaan idinla wadaagaynaa insha Allah tacaala ku soo dhawaada daawasho wacan magacayga waxaa la yidhaahdaa Mahada Xasan waxaan idinkula noolaa magaalada Minneapolis 10 sano ka hor baan idinka guuray hooyo single mom oo 6 ilmood korsanaysaan ahay marka waxaa dhacday last year labada cunug oo igu waaweyn midna jaamacad buu ku jiraa midna 18 buu ahaa last year wuxuu dhameeyay high school 2 bilood ka bacdi high school isagoo jaamacad u socda accident buu subax asagoo shaqo u socda oo waliba ku yiri hooy anaa ku tuurayo intuu iga diiday ilmaha waad iska taqaaniin age-kan ku jiro wuu igu yiri ma ana aadaya break-gan ku soo noqonayaa buu accident naag isku dhaceen naagta markay isku dhaceen isaga labada miskood labada jilib cajirka laftaas dheer maxaa la dhahaa kalxanta meel walba ka jajabay 3 bilood ba waxaan kula jiray dhakhtar iyo rehab marka la isku wada daro 7 bilood hadda cunugii markuu soo yar ladnaaday uu ii soo sheegay socon xataa ma si fiican uma socon karayo waliba qalitaan dambe lagu celinayay waxaan 9 jeerna waa la qalay markii waxaas dhan noo dhammaan rabaan bay hadda waxay ku soo charge gareeyeen manslaughter wax la dhaho oo up to 10 years buu ii soo sheegay haddii convicted ku dhahaan uu face gareynaya marka waxaan idinku imaaday magaaladaasna dadka ma aqaani 10 sanaan deganaa 10 sana iyagu baan ku mashquulsanaa inaan koriyo marka waxaan idinku imaaday magaaladiinaan ii soo sheegay aan deganaan jiray gabar walaashiinaan ahay dee in la caawiyo dadka lama haysto idinku baadin haystaa Soomaali Maxamed meel kasta adduunka joogtaanba aad iyo aad baad mahadsantahay walaalayaal page-ka loo furay ama lacag loogu abuurinayo GoFundMe page insha Allah tacaala screen-ka ayaan idiin saari doonaa qof walba GoFundMe page intuu aado ayuu maaragtay wax awoodiisa maaragtay gacan ka geysan kara haddii aadan rabin GoFundMe page ayadaa toos la xiriiri kartaa number ayaa screen-ka ku qoran numberkaas ayaad kala xiriiri kartaa magaceeda waa Mahado Xasan xawilaad kasta ayaad ugu diri kartaa Minneapolis Minnesota ayay joogtaa haddii aad rabto numberka inaad iska xaqiijisid numberka shaashada ku qoran wac kadib marka laga qabto macluumaadka qaabka wax ugu diri lahayd ayaad weydiin kartaa kadib wax alla waxaad awoodi kartid ayaad u gudbin kartaa hataa haddii ay duco tahay oo ama waanad tahay haddii aad wacdo la hadasho runtii ayada waxay u tahay wehel ayay u tahay maanta ayay noo baahan tahay insha Allah tacaala aan garab istaagno walaalayaal aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa waxaan ku rajo weynahay in la garab istaagi doono lacag kasta oo laga baahan yahay looyarada dalka Mareykan aad iyo aad bay qaali u yihiin looyar ka fiican yahay ayuu ka qaalsan yahay marka lacag fiican haddii loo helo oo looyar lagu qabto laga yaabo 10 sano in wax laga dhimo ama la cafiyo macquulay noqon kartaa insha Allah tacaala aan garab istaagno walaalayaal wax walba awoodi karteen aan ku kaalmeyno meel kasta joog Soomaaliya oo dhan Canada iyo Mareykan kaliya ma ahan meel kasta joog gabadhaas la garab istaago insha Allah aad iyo aad insha Allah tacaala aan garab istaagno Soomaaliya hadaan nahay waxaana loo bartay xilliga wax dhacaan runtii aad iyo aad baa la isku kaalmeeyaa marka ay maaragtay qof walba duurkaas markuu marayo qabiil iyo waxyaalahaas laga hadlo laakiin markay wax dhacaan dadka isku gurmado Soomaali camal ma jiro caalamka lagama helo marka waan ku kalsoonahay in la caawin doono gabadhaasi haddaba lacagtu way u bilaabatay meel fiican ay maraysaa balse 1 iyo 2 lama joogo saan hore idin sheegay looyaradu aad iyo aad bay qaali u yihiin looyara fiican lama qabsan karo haddaad lacag haysanin
insha allahu tacaala muhiimaddu waa looyarkaasi waxa lagu qabta ayaa la rabaa, qarashkiisa ayaa loo baahan yahay, duca iyo wax walba waa xaggiina. insha allahu tacaala annagana waxa awoodeyna waan ku darsanaynaa, adinkana ku darsada ayaan idin leenahay. aad iyo aad baad umahadsantii walaalayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. ilaahay dhibaatadaasi ha ka dulqaado, hooyadaasi kurbada haysato farxad ilaahay ugu bedelo, iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed inta dhibaataysan oo maaragtay dhibaatooyin badan ayaa iska jiro qurbaha iyo dalka iyo dibaddaba. ilaahay kurbada ha ka qaado inta kurbaysan, inta dhibaataysan ilaahay dhibka ha ka dulqaado, inta xiran oo xabsi ku jirto haddana lagu haysto ilaahay maaragtay ha ka soo daayo, inta xanuunsan allah noo cafiyo, inta dhimatana allah u naxariisto. aad iyo aad baad umahadsantii walaalayaal, mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.